Assalaamu calaykum. Waxaynu sii dhamaanayay saacado kooban inooga hadheen sanad aan ka bixi doonin dad badan maankooda amaba maskaxdooda kaas oo nolosha aadanaha saameyn togan iyo mid taban ba ku yeeshay waa sanadka 2020 ee ay nooga dhiman yihiin saacadaha kooban intaas kadib muuqaalkanan maanta waxaan kaga hadli doonaa dhacdooyinkii dhacay 2020 qaybo ka mid ah رعي وعبد المجيد waxaan ku soo gudbiyaa kanaalkan dhacdooyin xaqiiqo iyo mawaadiic faa'iido leh fadlan dad nagu cusub tahay ku soo biir kanaalka subscribe ta taabo lana wadaag asxaabtaada aad ku cajibay muuqaalkani mahadsan inagu dakalno muuqaalkeena maanta dhacdadeena koobaad oo dilaacida fayraska ama cudurka COVID-19 ama coronavirus. Health officials have announced they expect to see the coronavirus outbreak intensify. saddex magaalo ku yaala dalka Shiinaha ayaa mas'uuliyiintu go'doomiyeen si la isugu dayo in la xakameeyo fidista fayraska dhimashada leh ee coronavirus. China's capital has announced that it's cancelling all major public events for Lunar New Year as the country tries to stop the spread of a new virus. فيروس التهاب رئوي ناشئ في مدينة ووخان وسط الصين يزعج استعدادات الصينيين لاستقبال السنة القمرية الجديدة. تلوث jiray bilowgii sanadkan sii dhamaanay 2020 ayaa waxa uu xanuunkan safmareenka ay ka dilaacay dalka Shiinaha gaar ahaan magaaladiisa Wuhan taasoo sababtay in ugu horreyntiiba bandow lagu soo rogay gobolka Hubei ee ka tirsan magaaladan Wuhan laguna amray dadka magaaladaas ku noolaa in aysan guryahooda ka soo bixin oo aanay wax dhaqdhaqaaq ah ka soo muujin ilaa ugu dambeyntii safmareenkan ama fayraskan uu wada hareeyay caalamka oo idin waxaan u faafaan COVID-19 dhulka la galay dhaqaalihii adduunka oo dhan heer uu gaaray muddo yar oo aan saa u sii badnaynba inuu dibadda uga soo tuuro malaayiin dad ah shaqadooda oo uu ka dhigo dad bilaa camal ah ama bilaa shaqo ah ha uga badnaadaan duuliyayaashii kicin jiray diyaaradaha caalamka maadaama socodkii diyaaradaha caalamka uu kala gooshi jiray la joojiyey socdaalkoodii insha Allah waxaan rabbi ka rajaynaynaa amaba ka baryaynaa in lowga sanadkan uu ka wacnaado amaba ka sii wanaagsanaado amaba uu inaga kor qaado xanuunkan saameeyay amaba aafeeyay dhammaan adduunka oo dhan. dhacdada labaad waa dilkii ninkii lagu magacaabi jiray Qaasim Suleymaan waxa lagu tilmaami jiray ninkan inuu yahay ninka labaad ee ugu awoodda ama saameynta badan ee dalkaas Iran waxaana uu ahaa Qaasim Suleymaan taliyihii hore ee ciidanka dalka Iran waxaana uu ninka bilaabay yaraantiisii inuu ka soo shaqeeyo wadaadka ugu saameynta badan dalkaas Iran ee Ayatollah Ali Khamenei waxaana uu ninkan lagu magacaabo Qaasim Suleymaan uu ahaa nin door aad iyo aad u ballaaran ka soo ciyaaray siyaasadda dawladaha bariga dhexe ku yaal ugu dambeyntiina waxa uu dilkiisa dhacay 3 January intii ku guda jirnay sanadka 2020 isagoo ku guda jiray garoonka Baghdad ee xarunta dalkaas Ciraaq waxaana lagu dhuftay dhowr madfac gaari uu la socday oo uu rabay markaas inuu kaga dhoofo garoonka Baghdad waxaana dilkiisa sheegtay inay ka dambeeyeen dawladda Mareykanka waxaanay ku cadeeyeen amaba ku sheegay dilkiisa inay uga shakiyeen amaba ay la socdeen dad ay raadinayeen oo ay ku daba jireen dhacdadeena saddexaad bal markana aynu ka yara baxna dhacdooyinkan farxadda lahayn amba aan wanaagsaneyn kadib 86 sano ayaa dib lagu soo celiyay masjidka ay soo afeeyay masjidhan ee dalka Turkiga aadaankana kor lagu qaaday muddada inta leh kadib waxaana salaadii ugu horeysay lagu tukaday masjidka 86 sano kadib 10 July maalin Jimcaha sanadkan ay ku guda jirnay 2020 intii aanu furan ninkii lagu magacaabi jiray Maxamed al-Faatix magaalada Istanbul waxa ka tarin jiray imbraadoriyadii Byzantiniyiinta ama sida aynu naqaano ka muslimaan Rome waxaana uu soo maray masaajidkani 3 marxaladood oo kala duwan oo kala ah marxaladda ugu horeysa waa muddo 916 sano ah waxa uu ahaa masaajid kaniisad marxaladda labaad ayaa 481 sanadoodna inuu ahaa masaajid marxaladda saddexaad oo ah 86 sanadood oo kalena inuu ahaa matxaf waxa uu furtay ninkii lagu magacaabi jiray Maxamed al-Faatix magaalada Istanbul sanadku markuu ahaa 1453 waxaana uu amray isagoo wada furtay magaaladan Istanbul gabigeedba haddana kuma waxaad gudbin oo xoog kagama oo qaadan dadkii asalkoodii hore lahaa ee kaniisadda ay u ahayd waxaana uu kaga gatay ama kaga iibsaday masaajidkan hantidiisa shakhsiyanka ah ilaa uu yimid ninkii lagu magacaabi jiray Mustafa Ataturk ee ka mid ah nimankii soo maray xukunka dalkaas Turkiga gacantooda oo sanadku markuu ahaa 1934 gabi ahaanba ka joojiyay masaajidkan in laga dul eedaamo una bedelay matxaf ugu dambeyntiina Alleydankii dib waxa loogu soo celiyay masaajidkan ay soo sanadkan si dhamaanay intii ku guda jirnay 2020
dhacdadeena afraadna waa qaraxii ka dhacay Beirut ee dalkaas Lubnaan. Waxa uu dhacay qaraxani 4 August sanadkan 2020 ee ku guda jirnay sii dhamaanaya. Waxaana lagu tilmaamay inuu qaraxan ka dhacay dekedda uu ahaa mid la mid ah kii ka dhacay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalkaas Japan. Qaraxan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan. Waxa kale oo uu geystay qaraxani khasaare dhan $15 bilyan taas oo sabab u noqotay inuu wadanka Lubnaan afka saaro wada holac tufaysa oo ilaa maanta ka soo kabashadeedu ay socoto. qaraxan oo muuqaaladiisu dadyo badan ama adiga laftigaaga markaa daawata argagax ku gelinaya. ugu dambeyntiina waxaa lagu go'aamiyay ama lagu sheegay sababkii ka dambeeyay qaraxan inay ahayd maadada ammonium nitrate-ka taas oo in badan ku kaydsanayd bakhaar ama store ku guda yaalay dekedda Beirut ayaa sababtay ayaa la yidhi qaraxan ka dhacay dekedda Beirut ee dalkaas Lubnaan. dhacdadeena shanaad kacdoonadii ka dhanaa cunsuriyadda lagula kacay dadka madow kaasoo ka aloosmay amaba ka bilaabmay wadamo badan oo caalamka ka mid ah. waxaana kacdoonadan lagaga soo horjeeday cunsuriyadda lagula kaco dadka madow bilaabmeen 25 bishan May ee sanadkan sii dhamaanaya ay saacado ka dhiman yihiin 2020 kadib markii uu nin askari ah oo kamid ah askarta dalkaas Mareykanka oo nin kamid ah African American ka u dhashay dalkaas uu dilay si ka baxsan amaba ka hor imanaya bani'aadantinimada kaasoo ka cadhaysiiyay dad badan. habka amaba qaabkaas uu adeegsaday dalkiisa ayaa ahaa in uu ninkan askariga ahi qoortiisa ama luqunta ninkii lagu magacaabi jiray George Floyd kaga hayay lugtiisa muddo gaadhaysa 9 daqiiqo taasoo sababtay inuu neefsan kari waayo oo uu halkaas ku dhinto. taasina waxay sababtay in ay badan oo adduunka ka mid ah ka cadhaysiiso banaanbax aad u badanna sameeyaan. banaanbaxaas oo halhaystiisa ahayd Black Lives Matter nolosha dadka madow waxay leedahay qiimo. dhacdada lixaadna waa murankii ka dhex aloosmay amaba ka abuurmay doorashadii Mareykanka. waxaa 7 November ee sanadka 2020 ka furmay Mareykanka doorashada madaxweyne taasoo ugu caansanaayeen dadkii ka tartamayay ninka lagu magacaabi jiray Joe Biden oo ka socday xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo isna ka socday xisbiga jamhuuriga. waxaana guusha ka raacday doorashadaas Joe Biden oo ay dad aad u tiro badan u codeeyeen. laakiin waxa arrinkaas qaadacay oo ka hor yimid Donald Trump isagoo ku andacoonay ku shubtay doorashadaas Joe Biden isagoo caddeyn uga dhigaya weliba inay codeeyeen dad dhintay yacni inay lagu codeeyay karar muwaadiniin ah oo waa hore dhintay isaguna ku guuleystay doorashada madaxweynenimada aqbali doonina inuu Joe Biden noqdo madaxweynenimada. ilaa hadda may dhicin xil wareejintii dalkaas Mareykanka. wana wadeegi doona sida uu xaalku noqon doono maalmahan soo socda haddii aynu gaadhno eeba idmo. ugu dambeyntii muuqaalkan waxaan kusoo gabagabeynayaa dhib kasta oo ku haleeshay sanadkan aynu ku guda jirno 2020 waxa uu Allah subxaanahu wa tacaala ka lahaa xikmad si baynu doonaynaa allana si buu doonayay markastana waxaynu ugu waajibay sidii uu Allah doonay inaynu ugu mahadnaqno. waxaan ku rajeynayaa ama baynu wada rajeynayaa dhammaanteen sanadkan sanadkiisa inaynu ku gaarno barwaaqo iyo caafimaad dhammaanteenba. assalaamu calaykum. muuqaalkana ka ilaawi like inaad la wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.